بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد waxaan u dooray mowduuca asaga ah maadaama aan ka hadlaynay sanadka hijriga cusba oo noo bilowday 1447 aan ka hadlaynay bisha muxaram iyo maaragtay waxyaalaha sunnada ah iyo soonkeeda la soomahayay iyo wax noocaas oo kale ah ayaa waxaa jira khaladaad bishan la xiriira oo ay shiicadu sameeyeen marka shiicada oo dad ka mid ah muslimiinta sheegta ayaguna markaa haddee maaragtay muuqaaladooda iyo afkaartooda iyo ficilo gaar ah oo bisha muxaram ku aadan baa jirta marka dadka qaarkood inay arkaan baa laga yaaba ama ay maqlaan ama ay ka daawadaan meelaha qaarkood marka in dadka xoogaa laga jaahil bixiyo annaga muxaramteena iyo waxa aan samaynayna iyo waxa nimankan samaynayaan diintiina wada sheeganaynaaye xageeb ku jiraa khaladku marka midaas baa runtii waxaan ugu bixisay inaan ka hadalno oo khaladaadka nimankaasi ay ka galeen bisha muxaram ay ka galeen iyo siday u bedeleen inaan ka hadalno si looga digtoonaado oo anagu sunnadeena ee khayrkeena insha allahu tacala aan waardiyeysano aad iyo aad waa arrin muhiim ah dadku inay ka taxadiraan oo iska ilaaliyaan fadiilata sheekh su-aasha kale ee muhiimka waxay tahay maadaama aynu ka hadlayno taxriifka iyo bedelidda khatarta uu leeyahay maxay tahay gaar ahaan diinteena islaamka uu ku leeyahay runtii saa la socotid diintu waa manhaj ama wado ilaahay jeexay subxaanahu watacaala oo ka kooban maaragt arkaan bay leedahay cibaadooyin bay caqiiday leedahay akhlaaq bay leedahay marka diinta haddii la bedelo khatar bay leedahay maxaa yeeley dadka diinta inay ku badbaadaan oo adduunkooda anfaca oo aakhiro anfaca lagu talagalay laakiin haddii diintii la bedelo wixii lagu talagalay oo saameynta ahaa ayaa laga waayahaya diinta bedelmaysa muuqaalkeeda bedelmahaya xataa caqiidadeeda ayaa maxaanku raha bedelmahaya siday u egtaha bedelmahaya dadkii diinta xataa soo geli lahaa muuqaal kale bay ka arkahayaan oo aan la aamini karin oo aan la qaadan karin marka diintu islaamka haddii sidii loo daayo diin qurxoon oo caqiido nadiifa leh oo cibaadooyin fiican leh oo akhlaaq fiican leh oo qofkii maqlaa ama arkaahay uu soo maaragtay ay soo jiidanaysa weeye laakiin markii la bedelo muuqaalo iyo caqiidooyin iyo ficilo iyo baratics aan sax ahayn ayaa soo gelaya taasoo qofka samaynhayaana uu ku khaldamahayo oo uu ku mutaysanayo ciqaabka ilaahay adduunkana maxaanku dhib ku mutaysanayo dadkii soo geliya lahaa laftooduna diinta muuqaalkeedii si kale ay u arkahayaan marka diinta la bedelo oo bidcooyin iyo waxaan jirin lasoo geliyaa waxaa weeye diinta saameynteedii adduunka oo fiicnaa bay baabi'inaysaa iyo wanaagii iyo badbaadida aakhirana bay baabi'inaysaa marka taxriifka iyo bedelidda diinta la bedelaa waxay reebayso ma ay jiraan wax kastoo baabi'inaysaa waana tirtiraysaa baaraka allahu fiik maxay yihiin asbaabaha keena taxriifka iyo bedelidda runtii asbaab badan baa jira waxaa ugu kow waxaa loo yaqaano caatifad badanaa waxa diimaha bedelaa dad ku soo duulay ma aha dadka diinta lafteeda haystay ama ku abtirsan hayey ayaga laftooda ayaa bedeliddu ka imaanaysa marka hore marka ayagoo caadifoonaya oo isleh diinta waxtara ama isleh dad wanaagsan maxaanku rahaa tacdiimiya ama isle dad wanaagsan barakaysta isleh ayay wax ku dhacayaan khaladaad bay gelayaan marka caadifadaas diiniga ah oo dadka diinta ku jira laftooda ay qabaan ayaa horta sababta ka ah kow sababta labaad waxaa weeye waa jahliga diinta laga jaahil yahay oo diinta nusuusteedii iyo tafsiirkii qur-aanka iyo axaadiista nabiga sala allahu calayhi wasalam iyo sidii asalaf asaalix diintan dadkii baraatika u sameeyaa jira marka dadkii diintan aaminay oo sida baraatikada u sameeyey oo saxaabada u horeeyeen oo taabiciinta iyo taabiciinta iyo aimadii hore dadka loo yaqaano salaf saalix dadkaas waxay sameeyeen iyo siday diinta uga camal faleen haddii aan la aqoonin waxaa weeye yani qofku uuna jaahil yahay qofku caadifana hayso waxyaalo kale marka oo dadkii hore aan laga haynin
laakiin caadifada waxooga ku qurxinayso ayaa samaynaysaa. marka caadifada waa keentaa. waxaa kaloo keena jahliga garatay ayaa keena. waxaa kaloo keeni kara marka qaarkood dad cadow ah oo diinta soo dhex gala oo inay fasaadiyaan raba. oo hadda maalan shiicada oo kale waxaa la xusaa nin la yidhaha cabdullaahi ibnu saba oo inuu yahuudi ah la sheego oo inuu islaami sheegtay ayaa diinta ku cayaaray oo shiicada afkaartooda ay maanta aaminsan yihiin asaga ayaa salka u dhigay oo ku soo biiriyey diinta. garamaysid sida kirishtaanka loo yiraaho maaragtay in Butrus la yiraaho oo yahuudi asal ahaan ahaa oo dadkii nabiga ciise dhibi jiray ahaa ayaa sheegtay inuu ku soo biiray diinta. kadibna maaragtay bidcooyinkani waxa maanta maxaan ku rahaa kirishtaanku ay la yaaban yihiin ay macnaha ay maaragtay ay maxaan ku rahaa ay ku bedeleen diintooda ayuu soo geliyey. marka dad noocaas oo aan diinta maaragtay yani aan lilaahi ka ahayn oo soo dhex gala oo inay bedelaan rabaa lafteedana way keenaysaa. way keeni kartaa. markan haddii tusaalooyin ku aadan taxriifka ama bedelidda taariikhda ummadihii hore haddaad tusaalooyin ama waxa weeye aada naga siiso. way badan tahay in diimaha la bedelo wax hadda bilowday ma aha ama shiicadu bilowday ma aha. sida bukhaari uu warinayo markii asal ahaan bani aadamka ilaahay abuuray towxiidka iyo toosnaanta ayaa asal u ah oo nabiyullaahi aadam iyo caruurtiisa lagu bilowday. marka waa la qumanaa waa la toosnaa. marka hageeba ka yimid khaladaadku. khalad wuxuu ka yimid sida bukhaari warinayo uuna ka warinayo ibn cabaas dad waa wanaagsan oo maxaa ku qowmo nuux dadkeedii maaragtay aan ka soo jeeda oo dhintay ayaa waxaa dhihi dadkii wanaagsanaa saan loo iloobin maaragtay waxyaalo dee lagu xusuusto aan sameynaa la yidhi. habaa la sameeyey ama ha ahaato maxaanku meeshii ay ku asnaayeen oo la fadhiisto ama ha ahaato sawiraha loo sameeyo adugu waxyaalo tusaalooyin ah oo ayaga lagu xusuusanayo ayaa la sameeyey si loogu dadaalo diintii oo ayaga lagu daydo. saasa marka hore maaragtay bay ku bilaabatay. laakiin marka waqtigu dheeraaday dadaan aqoonin waxaan waxay ahaayeen ayaa wixii caabuday. oo suuratu inaa arsalnaa nuux suuratu nuux ayaa lagu sheegay maaragtay waqaaluu laa tadarunna aalihatakum walaa tadarunna waddan walaa suwaacan walaa yaquuha yacuuqa wanasra. wuxuu fasirayey ibn cabaas wuxuu yihi nimankaani qowm saalixiina bay ahaayeen oo wanaagsan laakiin dadkoodii ayaa markay dhinteen yiraaheen saan loo iloobin waxa loo sameeyo kadibna markaas in la caabudo isku bedeshay. marka caadifada ah in dadkan aan la iloobin waa caadifo sax laakiin sida loo hirgelinaya waa sidee maogta. marka khaladaad bay sameeyeen ayagoo iska keensadeen. khaladaadkii marka kuwa gadaal ka yimid oo aan garanaynin ayaa si kale u fahmay. markaasi waxay kala dhaceenba in waxaan la caabuday kala dhaceen. taasoo keentay in ilahi subxana watacaala uu nebi nuux soo diro oo qoomkii markay diideen diintii oo laga fujin waayo. fiiri macnaa wuxuu say ku bilowdeen fiiri say ku bilowdeen iyo si lagu fujin waayey isma laha. jahligaana keenaya wadamatii waa tii la halaagay qooma nuux la halaagay. marka halaagaas weyn oo la yaqaano taariikhiga ah oo maaragtay koonkii o dhan camimay oo wixii jiro o dhan ay baaba-een waxaa u sababa maaragtay in lagu dhegay maxaanku rahaa shirki kasoo bilowday in dad saalixiin ah lays yiri hala tacdiimiyo lays yiri yaan la iloobin lays yiri maxabadooda hala ilaaliyo waxa noocaas oo kale ah ayaa keentay. ta waa tusaale. tusaale kale waxaa weeyaan nabiyullaahi ciisa oo ambiyada ilaahay ka mida oo rasuul ah oo towxiidka taban lala soo diray sida ambiyadii kaleba diintiisa towxiidka ahayd oo inuu asagu addoon ilaahay yahay rasuul ilaahay yahay sida ambiyada kaleba yahayin. waxaa loo bedelay inuu asagu ilaah yahay ama asagu uu ina ilaah yahay. sidee ku timid waa caadifa weeye caadifad iyo ninkaa la ohan jiray butrus la ohan jiray oo yahuudiga ahaa oo soo dhex galay iyo markii maxaanku rahaa maarata diinta masiixiga dad wathaniyiin ah oo roomaankii ahaa maarata isdhex galeen ayaa diinta bedelantay. waana waxa keena inay diinuhu bedelmaan haddii dad kale la dhex galo oo diimo kala haysta haddaan la iska waardiyeynin waa ku saameynayaan. marka
diintii tawxiidka oo nabiyullaahi ciisa lala soo diray inuu asagoo addoon ilaahay yahay rasuul ilaahay yahaan ahayd oo ilaahay la caabudo ayaa waxaa loo bedelay inuu ilaah yahay saddex ilaah mid ka mida weyaa la yidhi ama asaga ayaa ina ilaah ah halkaasaa lagala dhacay ilaa maanta adduunka diimaha waaweyn bay ku jirtaa yani diimaha waaweyn bay ku jirtaa oo aada maarata maxaanku loo aaminsan yahay oo yurubba asaaska ah maxaanku rahaa iyo maraykan iyo afrikada marka la gumaystay diinta baadilkaha la keenay garamaysid oo maanta dowlado badan oo afrikaan ah ayaa kirishtaan ah oo maarata nabiyullaahi ciisa inuu ilaah yahay aaminsan ama in ilaah yahay aaminsan waxaas maxaa keenay caatifad oo nabiyullaahi ciisa inuu nebi ilaahay yahay oo aan addoon ilaahay yahay waa darajo fiican wey waana ku filanta laakiin haddii waxaas ka badan yani loo raadiyo soo garamaysid waa lagu baadiyoobaya marka jahli iyo caatifad iyo qofkan wanaagsan halasii wanaajiyo iyo wanaagiisu ziyaadu ahaa iyo maarata addoon ma ahaan karo waxa noocaas oo kale ah ayaa sabab u ah laga badiyey soo garamaysid marka taariikh ahaan runtii taasaa dhacday maanta oo garanaysa de kirishtaanku waa dad malaayiina wey garamaysid waxaana bilaabay yani caatifadaasi jahligaasaa bilaabay baaraka allahu fiik aad iyo aad waa hagaag daawadayaal weli waxaad daawanaysaan barnaamijka islaamka iyo bulshada qaybihii markaa u dambeeyey ayaan markaa ku guda jirnaa fadiilata sheikh bashiir axmed salaad ayaa markaa barnaamijka nala jooga oo nagala qayb galaya fadiilata sheikh su-aasha markan muhiimka ayaa waxay tahay isla markaana ah duluucda mowduuceena shiicada sidee bay u bedeleen bisha muxaram runtii muxaram waan soo marnay hadda waa sii dhammaanaysaa inay tahay yani shahrullaahi bay ku tilmaamtay axaadiista nabiga sala allahu alayh wasalam nabiguna sal allahu alayh wasalam waa isagii xadiis saxiix aan ku lahaa soom la soomo ramadaan kadib soomka bisha muxaram ayaa u fadli badan nabigu sala allahu alay wasalam in cashuuraa la soomo ayuu noo suneeyey bal culamada qaar baa yidhaha inta ramadaanka aan la waajibin ayaa la soomi jiraa la yidhaaha marka bisha noocaas ahayd sababta loo soomayaana inay ahayd ayaa lagu farxsan yahay ama ilaahi subxaana watacaala looga mahadnaqahay inuu maarata nabiyullaahi muuse ila badbaadiyey uuna ka badbaadiyey fircoon iyo dhaalimiintii kale saas bay ahayd saas marka waa sida nebigu ogaa sala allahu alayh wasalam waa sida saxaabadu ogaayeen waa sida axaadiista nebigu sala allah alay sl sheegaysa waa sidaas laakiin waxaa dhacday sanadkii maarata 60 iyo xoogaagii meelahaas aduu labadan fil ay ahayd ama saddexdii ayaa xuseen bin cali ayaa la dilay radi allahu canhu waa la dilay oo niman siyaasa ahaan iska soo horjeedaan ayaa dilay marka yaziid bin mucaawiya ayaa khaliifo ahaa ama mas-uul ahaa ama muslimiinta amiirkooda ahaa marka xuseen bin cali asagoo yaziid ku haysta maamulka oo aan ku qabsanaya ayuu maxaanku rahaa adugu ciraaq buu aaday markuu ciraaq aaday ciraaqii balantii bay kaga baxeen markaan ciidankii lasoo diray iyo xuseen bin cali iyo dad la-aanah ayaa ishelay xuseen marka inuu iska noqduu rabay oo barnaamijkan ku socon waayey wuu iska daayay laakiin lagama yeelin oo dadkii dad dhaalimiin ay ahaayeene isagayba dileen dad kale socdaan way dileen marka dhacdadaas inuu dhacday waxay kusoo beegantay yowma cashuura bay kusoo beegantay yowma cashuura bay kusoo beegantay marka shiicadii yowma cashuuradii la ogaa intay ka bedeleen bay wax ka dhigeen yowma cashuura xuseen iska leeyahay bay ka dhigeen oo meeshii yowma cashuura nabiyullaahi muusa ayaa ilaahay badbaadiyey kabaas dhigane waxay yidhaha yowma cashuura waa maalintii xuseen la dilay marka maalin murug weeye kow horta taas geliyeen beenamaa diin ahaan ay tahay maalin ilaahay lagu shukrinayo maxaa yeelay guul weyn oo u soo hoyatay dadka muslimiinta oo ahludiinka oo ambiyadii hore usoo hoyatay oo nabiyullaahi muusa iyo qowmkiisii usoo hoyatay oo nabigana sal alla alay wasalam maxaanku warahaa uu ku shukriyay ahayd saasay ahayd laakiin shacab waxay leeyihiin maye xuseen dilkiisa baa wax kasta ka weyn marka maalintu maalin shukri maahane horta waa maalin baroor weeye oo garamaysi tan kale waxaa weeye waxay yidhaaheen in la soomaahay waa xaaraan ama waa karaahiyoba soo garamaysid ma garatay haye maxaa jira waxay leeyihin maarata maxaa yeelay maalintan maalin waxaa weeye maaragtay maalin haddaa u soontid farax u soontid ama shukri u soontid
waxaa weeyaan waa xaaraan bay kuleeyihiinba. marka say ayado dhan bay ka bedeleen, murug bay ka dhigeen, soonkii ayay diideen, maxaan ku dhaca la soomahayey. Shukri iyo nabiyullaahi muusana waa ka jareenoo dhacdadii xuseen bin cali ayay ku xireen. tan kale waxaa weeye musiibada in la nooleeyo oo musiibada maalin loo yeelo diinta ma ogola. maxaa musiibada hadii lasoo nooleeyo murugta baa soo noolaanaysa. insaankuna murugta inuu iloobaa fiicane inay murugta la socotahay hataa naftiisa iyo moralkiisa noloshiisa ma anfaxayso, dhibaato mogta. marka diintu waxay rabtaa musiibada ha soo noolaynin, musiibada markay dhacdo istirjaac iyo sabar samee, intaa ku ekee, hadday kugu soo dhacdo ilaah subxaana watacaala ka ducayso, saas baa la rabaa. laakiin haddii munaasaba loo sameeyo oo lasoo nooleeyo murugtaa soo noolaanaysa. marka diintu faraxay soo nooleysaaye magaratay musiibada ma soo nooleyso. marka in musiibada wakti loo sameeyo waliba wakti aan dhammaanaynin oo muxaramta dhan baa la wadayaa, safar baa la wadayaa, hadda 40kii weeye, hadda 60kii weeye, hadda 100kii weeye. marka taarikh dheer bay soconaysaa aan kala haraynin. bay keeneen marka maarata taqyiir ma dhamaystiran bay ku sameeyeen cashuuradii oo nabiga sallallahu alayhi wasallam soomahayay aaway, war saxaabadii soomaysay aaway, wa nabiyullaahi muusa iyo dadkii la badbaadiyey taariikhda dheereeda aaway. garamaysid kale xuseen bin cali dilkiisu waa dil khatara weeye, sax weeyaan, dulmi buu ahaa, waa sax. laakiin aabihiisba waa la dilay, aabihiis maa loo sameeyo hadii xataa mogta aysa raba xataa laga yeelo. garate aabihiis baa la dilay oo ka fadli badan asaga oo fadligiisa laisku raacsan yahay shiica iyo sunnaba. cali bin abi aalib baa ka fadli badnaa wiilkiisa xuseen ka fadli badnaa. marka waliba ramadaan baa la dilay, waliba asagoo gurigiisa ka soo baxay baa la dilay oo salaada u socda. been xuseen la dilay isaga oo yani umuur siyaasadeed ku jira baa runtii la dilay. marka isma laha. okay, Usmaan bin Cafaan baa la dilay, cumar baa la dilay. marka ka soo qaad haddii shaacadu diidan tahay, Usmaan diidan tahay oo cumar diidan tahay, waa diidan yihiin. wala cali maxaa asaga dhimashadiisa iyo dilida la dilay maxaa loo bunbuunin waayey oo loo nooleyn waayey oo lagu sameyn waayey munaasabooyin waaweyn. magarata xuseen bin cali marka in la bunbuuniyaa waxbaa ku jira, saxna ma aha. garamaysid marka inahaas runta sameeyeen waana ficil ilaa hadda ay wadaan oo ilaa hadda socda weeye. waxaa la oran karaa ayagu munaasabooyinka kaleba oo ramadaanka iyo iidaha iyo munaasabooyinka kale oo diinta islaamka ku weyn, ayaga tana kala weynba. garamaysid oo adduunka laiskaga yimaadaa oo xuseen bin cali intaas oo qabri oo aan jirin ayaa loo sameeyey. garamaysid qabri bu kuleeyahay ciraaq kuleeyahay, qabri bu kuleeyahay qaahira, mid buu kuleeyahay maxaan ku raa dimashqan falaya iyo meel kale, asagoo madax badanaa oo jir badanaa oo meyd badanaa. so garamaysid waxay tilmaamaysaa macnaha waa diin khuraafa wey. garamaysid marka qabrigiisa ku yaala karbala garatay oo hadda qabrigiisa uu yahay weeyebe ayaa laiskugu tegaya, meel kasta laiskaga imaanayaa maaragtay intaas oo hataa waxyaala badan khataraa la sameynaya aan sax ahayn. marka way bedeleenba bishii muxaram iyo wixii lagu talagalay iyo soonkii lagu talagalay iyo taariikhdeedii wixii o dhan way bedeleen. muxaram kale oo ayaga u gaar ah oo xuseen ka bilaabanaysa oo nabiga sallallahu alayhi wasallam ka jaran oo saxaabada laga jaray bay wataan. fadiilata sheekh, gabagabadii maxay tahay khutuurada ay leedahay bidcooyinka diinta in lagu soo daro? runtii dee way muuqataa. maxaanku orahaa hadda maalan shiicada u jeeda meesha marahayaan maaragtay muxaramtii la ogaa oo xadiistu sheegaysay oo soonka lahayd oo maaragtay taariikh dheer lahayd waa la jaray. marka ko horta bidcada waxay keenaysaa horta wixii jiray in la waayo asalka ahaa. marka wax cusub baa imaanaya oo aan sax ahayn waa kow. tan kale waxaa weeye wixii saxdaa baa la tegayaa, wax baadil ah baa la samaynayaa. hadda maalan nabiyullahi ciisa oo tawxiid iyo diin la yimid waa la bedelay, waxaa weeye shirki iyo saddex ilaah iyo ina ilaah baa la galayba. waana bidca dad baa keena waxaas.
soo garanaysa kuwii nabiyullaahi nuux aan qoomkiisa ahaan oo garanaysa ayagan saasoo kale ahayd marka waxa weeyaan tawxiidka laga tegelayaa shirki ayaa maarata maxaa kuwa la keensanayaa sunnadii iyo waddadii nabiga sala alla alay slm ayaa laga tegayaa waddo kale oo aan jirin baa la samaysanayaa quruxdii iyo wanaagga laga tegahayaa waxaa la gelayaa muuqaalo aan fiicnayn oo hadda muxaramta sunnada ah oo la soomayo oo tartiibta ah iyo maxaanku shiicadu isku muuqaal maaha dad isdilahayo barooranaya oo maar isgaraacahaya oo dhiga iska keenahaya waxyaala badan sameynaya ilaa la yihaaho maxaanku yiraha ii sheeg xataa gaalo waa la yaabaan war dadka isgaraacaya maxay rabaan war diinta noocana maxay tahay qof dhiga iska keenahaya oo odhanaya waa barooranaya oo xuseen baa la dilay isgaramaysid muuqaalo aan fiicnayn qofka arkaa runtii uu ka yaxyaxahaya baa la sameynaya garamaysid tan kale maaragtay maxaanku rahaa yani maxaanku rahaa yani zamankii fadliga lahaa baa la bedelahayaa ficilkii wanaagsan baa la bedelahayaa meeshii wanaagsan baa la bedelaya hadda maalan yani xuseen iyo karbala iyo qabrigiisa meel muqadasaha laga dhigay muqadasna maaha daliilna maaha xadiidna ma lah garanaysid garanaysid macnaa waxa weeyaan maxaanku rahaa marka in qabrigiisa lasoo ziyaarto oo waxay yidhaahaan qofkii qabriga xuseen yimaadaa sidii inuu 7 jeer xajiyey oo kale wey bay kuleeyihin qaarkood wax la yaab leh moogta marka macnaha maaragtay macnaha waxa weeyaan tacdiimkii nebiga sala allahu calay wasalam iyo tacdiimkii sunnadiisa baa laga tegahayaayo tacdiim kale baa la gelayaa oo aan asal lahayn heer waxaa la gaaray xataa maaragtay dhoobo inta laga soo qaado yani dhagax lagu sujuudayo oo shacab isticmaala baa jira qofka alta arkay moogta shiicadu maxaanku rahaa dhagax bay ku sujuudaan ee wejiga dhigtaan ka sujuudahayaan dhagax waxay kuleeyihiin dhoobadii karbala baa laga keenay halkaas laga keenahayaa meel kasta oo shiica joogto yani dhagaxaas maarata laga soo sameeyo dhoobadii karbala ayaa loo geynaya waxaa la aaminsan yahay in karbala ay ka fadli badan tahay meelaha kale garamaysid oo dhoobadeedu ay ka fadli badan tahay meelaha kale garamaysid oo dhoobadii madiine aawey haddii dhoobo la qaadanayaba ma banaa in la qaatee dhoobadii maka aawey tii madiine aawey haddii wax la qaadanayo waxaan jirin wey moogta marka heer waxay gaareen ba la oran karaba karbala iyo xuseen iyo waxaasoo dhan ayaa ka fadli badanba xarameynkii iyo nebiga sal alla alay wasalam iyo saxaabadii iyo wixii oo dhan runtii marka diinta dhan baa bedelmaysa la oran karaaba tan kale waxaa weeye oo khatarteeda le waxaa weeyaan waxaan la bedelayaa meel ma istaagahayaan oo hadda maalan shiicadu say ku bilaabatay maanta ma aha wayna soconaysaa isgaraac la isgaraacahayo iyo maarata waxa la qaadahaya hadda muusig baa lagu darayba garatay iyo dadkan maaragtay cayaaro maxaanku raha muusiga oo kale ayaa loo dhiibayba marka wixii shalay iska basiidka ahaa wax kale noqon hayaan wayna sii soconaysaa aad iyo aad ma istaagayso marka bedelidda diinta la bedelaya waxaa weye khuduradeeda marka hore dadka aan keenay meesha ku bilaabeen ma istaagaysee way soconaysaa maalan fiir nabiyullaahi nuux qoomkiisa markay bilaabanaysay oo maxaanku ra dadka la caabudi doono siday ku bilawda waxay ahayd war dadkaa dhinto wanaagsanaa si aan loo iloobin maxaan samaynaa bay ku bilaabatay fiiriya aan ag fadhiisano ama aanu samayno muuqaalo lagu xusuusto wax noocaas oo kalaaba iska ahayd oo niyad fiican loola jeedo markay dadkii niyadda fiican lahaa ay dhammaadeen oo kuwo jaahil ay imaadeen meel kale aadayba ilaa ay noqotay caqiido nabiyullaahi nuux oo 1000 sano ku dhowaad uu la hadlahayey oo la bedeli waayey ay noqotay ilaa qoomkii la halaagaba soo garanaysid marka waxaas waxaa weeyaan meesha ku dhammaanaysa la garan maayo mana istaagayso maxaa yeelay caadifadda wax dhammaada ma soconaysa nin kasta wuxuu jecel yahu keenaya saan laga dhigo daymidan lagu daro tana way fiican tahay tana ku dara markaasay iska soconaysaa kale jahligu ma dhamaado asnaa noocaas oo kale weeyaan marka runtii waa khuduuro weyn weeye oo diinta o dhan inay bedelanto bay halis u tahay baaraka allahu fiik waa hagaag aad buu mahadsan yahay rabbi ajar iyo xasanaad aan la soo koobi karin allah ka siiyo waqtigiisa qaaligaana inoo soo horay in badan baan kaga madnaqaynaa kaasi waxa uu ahaa fadiilata sheikh bashiir axmed salaad oo ah guddoomiyaha hay-adda culimada soomaaliyeed islamarkaana ah guddoomiye ku-xigeenka midowda golayaasha culimada soomaaliyeed aad buu u mahadsan yahay
rabbi ajri xasanaadana soo koobi kara allah ka siiya inagana allah inagu anfaco kuwii markaa fahma oo kuwana qaata allah inaga dhigo dhammaanteen guud ahaan barnaamijka islaamka iyo bulshada oo aad kala socoteen TV-ga qaranka Soomaaliyeed halkaas ayaan jecelnahay inaan ku soo gabagabayno waxaan dhinaca kaamirada iyo farsamada waxaan u mahadcelinayaa dhinaca kaamirada Axmed iyo dhinaca farsamadana waa injineer Fuad Muxidiin Ala Khalifa dhammaanteen oo isku duuban waxaynu idin kaga tageynaa sida iyo amaana Allah wa salaamu calaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakaatuh